shal waxaa ahaa qof aad u niyadjabsan shal waxaan ahaa qof iska jiifa kaliya oo aan wax qabsi karin oo la khadqaado kaliya السلام عليكم جايز ولكن ودنا بحر ودله سو دوادا فضل هدي ادكو سبتا جنالكيغا سبسكرايب صار هدي اد خوري وصارتني ما حدسنت مغعيغا ودنا بحر halka diga daawanaysan waa Mojti maad fiidiyoga waxaan ugu talgalay aan barnaamijkan asad hakiyo oo aan rabo inaan la barnaamijyo ama waliba aan ugu hambaliyo horumarka uu gaaray bal inta aan falanqeyntaas galin aan daawan fiidiyoga qirada badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذن سلامة دمان أصحابتي ذا فاميلكيغا صاحب بديدا ولا لهيغا كلجين وأذن سلامة وولالكينا ست حاجو ما أنتوا لو أعطني تدور أغسطو لو كن سغاليتون ما أنتوا أكله تدور سنة كهر وحان سبب صدي إن ولجك فريستو ما أنتوا أكله ومالن يجي يقول كل مالن فيديو كان ما أنتوا حكسب سنة هاي نولشيد عصب كهر فيديو كلو أسوسمي oo ku saabsanaa sidee waxay u dhaceen laakiin kan waxaad ku arki doontaa nolosheeda cusub shal waxaan ahaa qof iska jiifa kaliya oo aan wax qabsi karin oo la khadqaado kaliya inaa internet isticmaalo iyo inaa wax cuno iyo inaa seexdo kaliya jiifka kama soo degi karin haddaan ka soo degana waxaa ahaa qof la xambaaro oo dhinac yar loo gidi karo haddana alxamdulillaah sidaas aad iyo aad u fiicanaay ma sha Allah waa aad iyo aad wiliba shal waxa qad qaaday Abdullah Xaajo waxa xambaaray si anigiis amal marka hadana waa kan alxamdulillah waa fiicanaay shal waxa ahaa qof aad u niyadjabsan markay noloshii u cusbeed aad u murugoon jiray maxaa sidaan ku noqotay maxaa sidaan ka dhigay waxa iska dhaadhici jiray maxaa sidaan u noqotay maxaa sidaan alxamdulillah iimaankayga intaas ku soo gaaray waxa is dhihi jiray wax ma qabsan kartid wax ma yeelan kartid waa loo uqdadeena waxa is dhihi jiray marka alxamdulillah hadana aad iyo aad u fiicanahay sidii shalay maanta alxamdulillah waxa iga maqna intay maqna insha Allah ilaahay soo dhameystir doona waxa aad u darneed aan iloo karin markay lugta iga jabtay maalintaas ay ugu darneed waan xasuustaa waa maalin aad u xanuun badan alxamdulillah waan ku soo sabre tusaal badan soo qaatay haddana waa kina ma sha Allah aad iyo aad u fiicnaa haddaan shalay isbitaalka liiw geen jiray bareela ama ambalaasada liiw geen jiray maanta ana lugay ku tago فيديو كانوا دمستيران wuxuu yaalaa channelka armiheena asagana soo gudbiyay okay maanta waxaan rabaa inaan u hambaliyo asad hakiyo waxaad gaartay horumar fiican horumar balaaran ma sha Allah waxaad samaysay wax lagu daydo waxaad dhiirigelisay dad badan oo xilligan sariir jiifa dad badan laga niyad jabay dad badan wallahi waxa jira adiga dibka ku soo gaaray dib ka yar gaaray misana ilaa xilligan la dibtoon la jiifo darafad waliba sugayo in la caawiyo waliba sugayo in daawo iyo wax loo raadiyo falsamay waa dhiiranaan iyo kalsooni kartida iyo kalsooni iyo dhiiranaanta asmaysan waxa tahay qof mudan in lagu dayo hambaliyo waad gaartay horumar balaaran alxamdulillah waxaad ka soo tilaabsatay chief waxaad u soo gudubtay fadhigan waad ka tilaabsan doontaa waxaad u kici doontaa istaag waad la socon doontaa ilaahay mahadi alxamdulillah waxaan rajaynaynaa insha Allah adigoo socotid inaan ku aragno waliba adigoo ka soo sameynay video sida hadda oo kale dad badan ayaa ku dayo doona Abdullah Xaaji wuxuu qabtay hawl aad iyo aad u adag qof walba bini aadam ma hadii la dhoo qabo ee ku adkaanayso inuu qabto adiguna waa soo saartay dib waad soo aragtay maanta waxaad taagan tahay meel fiican waxaan ku leeyahay hambaliyo waligaa ha u jabin cadowgaaga hana murugoonin waligaa tii rabbi ayaa la kaashadaa waxaadna samaysay wada fiican ma sha Allah waxaad gaartay horumar balaaran waxaan marab ku dhihi lahaa
dadaalkaaga halkiis ka sii wad waad gaari doontaa walaalahaana garbaha ay taagan yihiin oo weliba dhiirigelin balaaran ku siinaya waxaan ku dhihi lahaa waad gaartay waxaa ku dhiman wax yar dulqaado waad gaadhaysaa halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa fideogayga waxaan rajaynayaa inaad ka daawan doontaan janaalka arrimaheena fideoga hadda aan tusayay oo dhammaystiran waa walaalkiina oo idin leh u duceeyo qof walba oo dhibaataysan waxaan jeclaan lahaa inuu ku daydo asad xakiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى